dhacdo xanuun badan baa dhaxmartay saxaabiga garanaysan Saciid ibn Zayd al-Adawi min al-10 al-mubashirin bil janna ku jiray iyo gabadh la oran jiray Arwa bint Uways ayaa dacwootay oo Marwan al-Hakam bay u dacwootay markuu Madiina ka ahaa waaliga iyo amiirka ka ah waxayna ku tiri Saciid ibn Zayd ayaa suuxdinta igu soo riixay oo dhulba igu haystaa dhul aan leeyahay iga qaatay Marwan baa u yeeray Saciid ibn Zayd oo waayeela markaasuu yiri haweeneydana ka dacwoonaysa oo maxay ugu haysataa waxay leedahay dhulbu iga qaatay oo meeshu guriga uu ka jeexday ana iskale soodintiisana xaqay ka tahay anaguna xaq warbay akhriday xuur may dhamaysataa Marwan oo hal baan ku leeyahay buuri ayadana hal baan leeyahay adiga waxaan ku leeyahay buuri inta Nabi Maxamed aan ka maqlay asagoo yiri ninkii taako iyo wax yar oo dhul ruux ku dulmiyay ka xad ama ka dhaca aakhira qoorta loo soo geeyo 7 dhul oo banka qiyaamo la imanaya inta nabiga ka maqlay seen aadama dhul oga dhici buu ogana xadahaya haweenadana ma dulmin been bay sheegaysaa dhulkaygii baan joogaa horta adigu xadiiskaas aan ku leeyahay buuri Marwan wuxuu maada nabiga ka maqlay ha adiga ha bas marxaata kale ku weydiimay oras ka tag naay dhaaf faraaniga ay aafayni ayada waxaan leeyahay buuri ilaahay haday been sheegayso iyo dulmayso waxaan jiray iga masabidatay ilaahay wuxuu qabri gurigeeda ku dhaxdil umada banaan baa lagu xabaalaayay qabrigeeda ku dhaxdil indhahana tir gurigeeda ku dhaxdil oo qabri oga dhig indhahana tir illa wuxuu arkaysa iska indhi tartiib buuri saxaabigu wuxuu ahaa mustajaabu dacwa ninkaas saxaabiga taabici waa ka sheekiyay Urwat ibn Zubayr iyo Muhammad ibn Zayd baa ka sheekiyay labaduba saaday u dhaqaaqday gurigeeda iyo beerta ilaahay waxa iga dhacay Saciid ibn Zayd ku dacwoon ay tagtay indhihi baa dam la siiyay indhihi baa madoobaada waligeedna ilkamaysa sheegaan maalinka dambe iyadoo hamagsanayso beerta qudhigeeda iyo dhulka dhex socoto oo ul haysato darbiga tasabsanaysa yay ceel ka fakatay ceelkii baa laga soo bixin waayay waa lagu xabaalay muxuu ku habaaray indhaha inuu Allah tiro gurigeedana lagu dhex dugo qabri looga dhigo indhihi baa ilaahay gabsiyay gurigeena qabri buu u noqday Maxamed Zayd wuxuu wax yar kadib ayaa roob badan baa yimid oo Madiina qabtay dhoolkoo dhan bay roobki xaaqeen oo qodeen waxa soo baxay dhagaxyii waagi dhulka la qaybsanaya astaamaha la dhigay u dhaxeeyay soodin u ahaa Saciid ibn Zayd iyo Arwa bint Uways markaas waxa la arkay dhul uu leeyahay Saciid ibn Zayd inuu ku jiro dhulkeedii oo dhagaxyuhu bay ku jiraan gudaha idan maxay ahayd haweenaydu ظالمت دولانتي صحابيga saxaabun wuxuu ahaa saadiq fi maddaca oo wuxuu inta neemad ka maqlay xadiidka miyaanu dhul dhacaya oo dhul dulmahaya roobkii baa ilaahay soo diray wuxuu ka shifay roob waa taqaanaa magaalo ku dhaca aan laami ahayn wuxuu caradu cunaya guryaha salkooda wuxuu qahaya wuxuu dhan buu qaadahaya markaas waxa soo baxay waaga dhulka la qaybsanay dhagaxyihii la qootanyay faylka la galiyo lagu kala soocayay dhulalka iyo guryaha markaas reemidoo dhan waxay ogaadeen saxaabigu inuu ahaa madluum ayadna ay daalimad ahayd daaba le bagay ku tayaa ha habaare waa halis weey dhulka iska ilaaliya dhulalka iska ilaaliya Nairobi hadda dhul intaad ku waalateen baa la isbaabicinaya dhulal intaad ku waalateen baa la isdulmaya nus mitir iga durug maya hal mitir iyo badh iga durug hanka hawada ka hele maya salka ugu qaba baabi'i marka hadda waxaan u malaynayaa dhul caadi ruuxu dulmay baa la yiri qoorta loo soo gelin leh waxaan ka baqayaa dhulka in la idinku daro 16 dabaq oo kale oo dhagax oo shub ah is ilaaliya aad la soo ilaaliya